kulan wacan saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa Iiraan oo afar shardi ku xirtay Mareykanka si dagaalka markaa loo joojiyo. waxaa xusud mudan in dowladda Mareykanka ay markal u soo jeesatay oo ay dalbanayso wada hadal markaa ay la gasho dowladda Iiraan oo markaa lagu joojinayo dagaalka iyada oo wali markaa ay sii socdaan duqeymaha ka dhanka ah Iiraan markaa ay iska kaashanayaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka. wakaaladda wararka ee Tasliim la yiraahdo oo ka tirsan ama markaa xiriirka la leh qaybta kacaanka ee Islaamiga ah ee Iiraan ayaa markan waxay sheegtay in Tehran ay ka jawaabtay qorshaha nabadda ee Mareykanka ee 15 qodob markaa ka koobnaa, isla markaana ay hadda sugayso jawaabta markaa Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tasniim oo soo xogeysay saraakiil xog ogaal ah waxay sheegtay in shuruudaha Iiraan ay yihiin 4 qodob ee soo socota. qodobka koowaad waa ficilada gardarada ah iyo dilalka markaa ay ku kacayaan cadowgu waa in markaa la joojiyaa. shuruudda labaad ee Iiraan ay ku xirtay Mareykanku waa shuruudo dhab ah waa in markaa la dhisaa si loo hubiyo in dagaalku mar kale uusan dhici doonin. qodobka saddexaad waa magdhow iyo inuusan markaa dib loo soo celin karin dagaal waa in markaa la damaanad qaadaa oo si cad markaa loo go'aamiyaa ama la helaa cid markaa damaanad qaadi karta. waa gacan saddexaad sida markaa qodobkan laga dhadhansan karo. qodobka afaraad oo Iiraan markaa ay hordhigtay Mareykanku waa joojinta colaadda waa in markaa la fuliyo dhammaan jihooyinka iyo kooxaha markaa iska caabilta ee ku lugta leh khilaafka gobolka oo dhan, taasi oo markaa tix raacaysa xulafada Iiraan iyo wakiiladeeda markaa ee gobolka. waxay ka dhigan tahay qodobkan in markaa la joojiyo dhammaan dagaalka iyada oo jiho walba markaa laga joojinayo, sida markaa in dagaalka Iiraan oo kaliya oo soo joogsan oo ay markaa damaanad qaadaan ama damaanad qaad markaa loo helo dagaalka ka dhanka ah kooxaha markaa Iiraan ay taageerto, sida markaa kooxda Xisbullah oo ka dhisan Lubnaan oo kale iyo sidoo kale kooxaha markaa xiriirka la leh ama markaa taageerada Iiraan ay u fidiso. sargaalkan ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in wakaaladda wararka ee Tasliim ee xiriirka la leh markaa Iiraan uu u sheegay in markaa fulinta xuquuqda Iiraan ee marinka Hormuz ay tahay xuquuq markaa dabiici ah oo sharci ah oo dalka markaa u gaar ah. haddaba maxay kula tahay daawade 4 qodob oo Iiraan markaa ay shardi uga dhigtay Mareykanka si dagaalka markaa loo joojiyo?